maalmuhu isu ekaa waxaan aad ula yaabay sida maalmuhu isugu eg yihiin nimankan mucaaradka ah ee Muqdisho jooga nimankaasi runtii dawladnimadii Soomaaliya waxay u dhigteen isbaara siyaasadeed bay u dhigteen nimankaas dawlad kasta saasay ku yihiin waad ogeydeen dawladdii Farmaajo waad arkaysay Farmaajo soo bixi ma waa 4 nin oo ilmaadeera oo magaalada Muqdisho isbaara siyaasadeed dhigtay dawlad kastana way baadaan haddana Xasan bay la hortaagan yihiin Xasan oo soo bixi ma nimankan asal ahaan waxay ahaayeen niman aan la aqoon laakiin xilal baa loo magacaabay mid madaxweyne noqday ama ra'iisul wasaare noqday ama wasiir buu noqday intuusan xilka loo magacaabin cid taqaanay male miskiin danihiisa raacdu ahaa xilkii markii loo magacaabay xilkii waa ka dhamaaday siyaasadii maba ka baxayaba sanad walba waa musharaxiin 4 cod ama 2 cod baa la helayaa waa ma samrayo dawladdii cusbayd ee la doorto ayuu 4 sano ee la doortay lagu haynaya oo cay iyo aflagaado iyo lugooyo aniga malihi dawladda saxan waana khaldan tahay malihi laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye mucaaradnimadoodu waxay noqotay shaqay ka dhigteen waxan xil baa loo magacaabay xilkii waa dhamaaday maba ka degayanba dawlad kasta mucaarad bay ku yihiin sanad kastana waa musharaxiin weeyaan codna ma helayaan dawladahay baadaan kuwii hore saasay ku ahaayeen kuwan saasay hadda ku yihiin kuwa dawladaha soo socdana saasay ku ahaanayaan nimankan markay xilalka hayeen dhammaantood waxay qabteen iyo waxay ahaayeen waa la ogyahay marka maxay wax u qaban waayeen waxa may qabanin hada Sheekh Shariif oo kale waad arkaysay wuxuu yiri dalka markii badda la saxay maba ogeyn buu yiri in Cabdishakuurna uu saxay wuxuu yiri waa la igu khasbay Rooble ra'iisul wasaare markii loo doortay qabyaalad iyo laaluush iyo maxay ahayd dantiisa gaarka abu ka doortay oo waad ogtahay suu yaalo waa ninkii ogaa ninkan Xasan Cali Khayre xoogaa waa fiicnaa laakiin gadaal waxay ahayd in uu markii xilka laga qaaday uu siyaasadda faraha kala baxo hadduu is-sharaxayo madaxweyne is-sharaxayana marka xilka la gaaro inuu is-sharaxo ahay laakiin habkan fawdada ah ee isgurubaysiga ah ee bari baa wasiir la iga dhigay iyo bari baa ra'iisul wasaare la iga dhigay iyo bari baan madaxweyne noqday weligayna waxaan raadinayaa kursi dawladdii timaadana mucaarad baan ku ahaanayaa buuq iyo qaylaan lugta haynayaa isbaara siyaasadeed baan Muqdisho dhiganayaa Farmaajo soo bixi ma Xasan soo bixi ma ka soo socda soo bixi ma war waxa cidna kuma jiri karto dawladdu way khaldami kartaa arrinta dhulka aniga kama hadlayo khaladaadka Xasan ka dhacaya kama hadlayo khaladaadka jira ma ka hadlayo waxaan ka hadlayaa nimankan mucaaradka ahi qaabkay wuxuu mucaaradayaan waa qaab iyagana qiimo riday bulshadiina wareeriyay social media 24 saac taagan yihiin shir bay qabanayaan shir jaraa'id bay qabanayaan buuq iyo qaylay ku jiraan ma basaasi sirdoon oo dad soo dirsaday oo leer Soomaaliya qasaa ma danaystayaal ay shaqo kala garanayn miya oo waxaan shaqo ka dhigtay miya ma isbaara siyaasadeed iyo baad bay maaragtay wax ku qaadanayaan maxay doonayaan ma inay dawlad kasta intay burburiyaan ay dawlad ay iyagu maaragtay keeneen ay sameeyaan kadibna ay baadaan oo xilal ka helaan haddii xilalka la siin waayana dawladda ay mucaarad ku noqdaan haddii xilka loo magacaabana ay waxba qabanin ay iska ilmahooda ku korsadaan yani xayaataba wax kalaba ma hayaanba marka runtii Soomaalidu dhibaatooyinka haya waxa kamid ah siyaasi qof isku sheegayo oo aan siyaasi ahayn siyaasaddu waa in bulshada iyo dalka iyo diinta la ilaaliyo laakiin in 24 saac ay iyo fawdo lagu jiro oo microphone la haysto oo 4 nin oo ilmaadeera oo Muqdisho jooga marba ay hotel Jazeera iyo hebelka shir ku qabsadaan oo fawdo joogta lagu jiro war waxaas waxba maaha
khaladaadkan dhulka iyo arrimihiisa waa baab kale waxaan la yaabay cabdiraxmaan cabdishakuur hadlaya wuxuu leeyahay dadka noo soo dacwooday ma station police baa tahay ma maxkamad baa tahay adigu maaragtay dadka kala xukunta ma loo yaray qabsadeen baa tahay yaa jinni boqor yaa kuu magacaabay in dadka aad maaragtay aad u doodid ma la garanayo waxaad ka hadlaysid marka runtii dadkan waxay u baahan yihiin qabaa'ilada ka dhasheen hadday qabsan karaan kulley ma qabsan karaan ay qabsadaan haddii kale dawladdu inay sharci ka soo saarto oo ninkii siyaasi isku sheegaya ee fawdo iyo qas iyo mudaharaad u sameeyay dad uu ku dhinto in xabsiga la soo dhigo waa fawdo weyn shacabkay kicinayaan dawladda iyo shacabka iska horkeenayaan dad baa dhimanaya dad baa dhaawacmaya booliskii iyo siyaasaddii bay dhex gelayaan waxba ilaaluush bay bixinayaan fawday wadaan nimankaasi waxaan odhan karnaa waa qaswadayaal Soomaaliya dhibaatada ka jirta way badan tahay laakiin dhibka ka jira qayb ka mid ay noqdeen micnaha dhibaatada Soomaaliya ka jirta qayb ka mid ay nimankani noqdeen yani mudaharaad joogta shir jaraa'id joogta social media joogta aflagaado joogta dawlad kasta oo timaado mucaaradnimo xildoon sanad walba musharaxnimo haddana 2 cod la helayo 4 cod la helayo haddana dib u soo laabo haddana shir jaraa'id haddana buuq xataa way gaboobeen waagay waxaan bilaabeen qaar baa dhalinyaro ahaa hadda odayay noqdeen xataa ma caqlinayaan war dadkan ha loo caqli celiyo waxa loo sheego mucaaradnimad ma aha qaab danaystannimo abaad u dhaqmaysaan kursi doon lacag doon waji doon baad aad dawladda baadaysaan dawladdii horaa baadeen ee farmaajo tanaad baadaysaan kuwa soo socdaad baari doontaan waa in ama kursi loo magacaabo ama musharaxiin ay noqdaan oo kursiga helaan ama ay mucaarad noqdaan oo dagaalka siyaasadda ku jiraan ee fawdada ah ninka madaxweyne loo doortaa kursiga wuu joogayaa laakiin 4 sanaad mucaaradka ku tahay waxaad caqabad kaga noqonaysaa servicekii uu bulshada itaalka ahaataba ha ahaatee uu gaarsiin lahaa ayaad caqabad ku noqonaysaa marmarsiinya ayaad ka dhiganaysaa waxbuu khalday laakiin khaladka iyo fawdada aad samaynaysid waa mid aad u weyn colaad hanjabaad mudaharaad dad dhimanaya dad dhaawacmaya xilligii farmaajo waa ogeydeen war ma yuhuud baa tihiin albaabka naga furo waadigi lahaa maanta shalay waa arkaysa waxa dhacay haddana fawdadii wali waa wadaa ma daalaysid doorashada soo socota waa ogaan doontaa isxulufaysi iyo buuq iyo shir iyo fawdo yani nimankan waxay u baahan yihiin in loo arko dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira in ay qayb weyn ka yihiin dhowr nin oo ilmaadeera oo Muqdisho jooga oo hoteelada shir ku qabsanaya dawladdii dhalataba lugaha qabsanaya oo baadaya caadi waa professional micnaha aan la yaabayba aan daalaynin waa 4 nin oo shaqana bari ra'iisul wasaare laga dhiga bari baa wasiir laga dhiga bari baa madaxweyne laga dhigay marka waa mahadsantihiin dadkii inaad tiraahday ahayd waxaan noogu abaalgudaysaa haddii xil lay magacaabo weligay baad iyo fawdan ku jiraya wax aad loola yaabo way runtii